السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتان كصاحبنا برتدي يوتيوب كهنا جافولي soo dhawaada janaalka hana jaafle ku soo dhawaada haddii aad ku cusub tahay bali subscribe noo saar like dheh share dheh comment ka bixi haddii allaha awoodo la raali uu ka noqdo hani maanta waxay idin wadaa hilibkaas aa ujeedaan oo quruxda badan oo markii aan diyaarinayo habeena sidaas aa ujeedaan kusoo baxa insha allah waa hilib ari martaqaada aan ugu talagalay martaqaadku badnaa laakiin hilibka bis aan kaga soo duubo marka sidaan u sameeyay iyo waxyaabihii aan ka sameeyay insha allah kusoo dhawaada bal xaaladda ila socdo marka waa kana meeshaan waxaan ku haysanaa tuun iyo kabsar 3 xabo basal waaweyn filfil xawaash buurbuur xawaash dhoodhoob qarfo heel iyo maxaa la dhahay raqay aan soo miiray meesha waxaan ku haystaa sidoo kale cusbo inta waxaan ku haystaa huruud marka intaana isticmaali doona haddii allaha awoodo la raali ka noqdo hilibkeenina waa keenaa 3 kiilo oo hilib waaye shal galabtii inta soo gada xal talaadada ku barisiyo waa soo jarjaray waa soo yaryareeyay waa soo nadiifiyay ma fahanteen marka waa kaasaahe soo ku soo baxbalan isla aragna walaa hilib aan shiilid iyo waqtina ka qaadanaynin si fudud ma sha Allah marka waa kana digsigan digsina qasaal lahaa wuxuu ka caawinaa in hilibkaaga ama wax walba oo ku saarato uu si degdeg kaaga soo tuuro insha Allah waxaan idinkaga soo siin doonaa cashir oo sida loo isticmaalo halistiis aad u badan tahay digsigan faa'iidadiisana aad u badan tahay ma fahanteen marka qofkii yaqaan oo maxay ahaday fahamsan oo kaliya isticmaali karo marka insha Allah waa idin soo fahamsiinaa qaabka loo furo sida loo sameeyo laakiin maanta waxa waa digsan maahan hool ay ugu jirto shaqada ay ugu badneed marka insha Allah waa kana maalina insha Allah cashir kaamil idin ka soo siin doona haddii Allah wada raali ku noqdo saliidaan ku soo shubtay yar laano hilibku waa ari moogta saliid badan uma baahno sidoo kale waxaan ku soo shubtay 3 xabo basasha oo soo yareeyay hilibkeena marka ku guranayna insha Allah hilibkana ujeeda hadaa ku dhahanay marka digsi caadi ay ku saartay 2 saacadood inuu ka qaataa laga yaabaa hilibku waa taqaani mahano soo adag ama saacadii bar inuu ka qaatay biyo badan وهلب كما تلالح كان نقض بيو بدن يعني لكن ديك سيجانيت صدق دقيقة 3 كيلو هلب كوغا صوتورا مركا ماشان حواشيد يعني انتو سيناي قرفيه هيلكي في الفشي waxaan sameeyay isku soo shiiday waa ku soo shubtay karo maxaan lahaay huruudin waa ku soo shubtay dhamaadayba heed intaas la iiga taale hore u soo isticmaalay marka waa kaasa huruudina ku soo shubtay raqayga aan soo miiray waa kaasa waa ku soo shubay asagana marka tuunta iyo kabsartan waxaan sameeyay iigan waa isku soo shiiday qalaadada hal mar isla marsiin fahanteen biyo u soo yeelay qalaadada biyo u soo nadiifiyay marka insha Allah tuunteen iyo kabsarteen ku soo darsanayna hadii Allah uu dalraalo ka noqdo bilis janaalka hadii aad ku cusub tahay subscribe dheh like dheh share dheh comment ka bixi insha Allah wax badan ka faa'iidina rajeynaya asxaabtaada sii gaarsii cusbaa ku soo daray cusbada aad qiyaastaada aad taqaanada ku soo darsanaysa laakiin ana wax yaraan ku daray waxay ahayd waalida guriga jooga ma hano cusbo aan loo rabin soo cusbada waxa dadka aan cusbada cunayo maxay ahayd ka dareemayna inuu dhadhankiisa cusbo la'aan yahay dadka cusbada aan loogu talagalin yani dhibaato aan u keenaynin aan u qiyaastaan ku darsada ma fahanteen soo aad cusbada aad jeceshaa waa ku badsan kartaa haddaan cabta ku yareensan kartaa aad joyska iskale marka waa kaasa waxaan ku soo daray kabsartani insha Allah intaana is dhex qaadsiinayna marka is dhex qaadsiino daboolkiisa u dhiibeena ma fahanteen 30 daqiiqo oo kaliya sugayna hadii Allah uu dalaal ka noqdo biyaan ku soo darsanaa sorry biyaha aan ku soo darsanayso waxa laga rabaa hilibka inay la ekaadaan faa'iidooyinka digsigan uu leeyahay waxa kale oo kamid ah biyaha markii aad ku shubtid maaragtay in yar ma ahan biyihii sidooda inta biyo ugu tala gasho oo ku shubtay iyagoo sidooda yaa ka helaysaa يعني ما كغورسناي بيها صدنكاس دقيقة أو مرق أنت عاد وترجش وجعلات بس هكذا سنة هدارت إنه كوشي المهلب كان وحاسمين بيهاس عسكي رينيسا سي بيها يرك وكوغورسدو كبعد إنه كوشي المهلب كجذن ماشي وكاغا صوب إن شاء الله دور مرة وكسون كرن دونا هدي لا ودلو كنا رالك نقد دور نوع وكسون كرن دونا إن شاء الله وإلى أركيدونتين دي لا ودلو رالك نقد بليس أصحابتي نسي جارسي هكفائدستان سبسكرايب تاني نوصار هنا بقي لمبرتي gaduudan maaragtay dhag ku sii fartaado waxba ma ka dhibayso marka waa kaas biyo ku soo darsana biyaha marba inay ka kormaraan hilibka waxaan rabaa inay la ekaadaan ma fahanta qiyaas la eg camal aan ku soo darsanaya 3 kiilo hilib oo 2 galaas oo biyo inta loo kariyay ee wali biyihiina maraqooda u dhex yaala ka war xaaladis waxa digsigana sababtaas iska leh
waqti 3 kiilo hilib garaafooyin waaweyn inta lagu shubo dhamaado wali adkaado maxay haddana u celinaa uu adkaada u celina markaas hilibka dhanahda ka tagayso ma fahantaa laakiin digsigan maasha Allah sida loo furaayo baalkaas yar oo ku soo madow sababtu meesha u saaran yahay waxyaabahaas oo dhan insha Allah waa idinka dibgeena hadii Allah oo dal u raali ka noqdo waan idin soo sharaxa sorry maanta xoogaa degdega ay ugu jirtay ma fahanteen marka u jeedin lafihii iyo hilibka si oo kala sisimeen yaa marka lafta marqaatiyaaba ka tihiin diirtan waa taasa waa hilib subxaanallah dadkii cuna aad uga heleen maraqiisi waa inta aan ku shub maxaa ka maqnaada wax yar oo beenha ka maqan Soomaha marka waa kaasa isla socon digsiga faa'iido badan oo leeyahay inkastoo qaali yahay laakiin walaa wixii qaaliga xoogaa faa'iido badan oo ku jirto qaashiisa faanta dhowr mar oo ku faa'iiday hal mar aan soo gadaysa marka waa kaasa insha Allah hilibkeen saas u jeedino quruxda badan oo ku soo baxay wax la dubay ma lahan wax la shiilshiila maaha wax waqti ka qaatay maaha aadna u jilcisay wuuna gaduudan yahay caraftiisa kaaga sii daran wallahi ma sha Allah tabaaraka laga ma sheekeen karo because wax walbo caraf ahaan ku shubno soo ma aha marka waxaan rajeynaa inaad tijaabisaan oo isku daydaan hilibkana ka soo tuurataan ma fahanteen hadii alaha wadal uu raali ka noqdo sidoo kale waxaan ka codsanaynaa subscribe-tina noo saartid like aad share aad comment-na ka bixisid oo feedback hilibka aad sameyn doontid aan noo soo sheegtid sidoo kuugu soo baxay marka waa kaasa marka xaaladeena meesha noo maraysa aan isla socono markan hilibku waa kana muddo lafti hilibku si oo kala raacdays yaa lafti garabka dhan way baxday ma sha Allah tabaarakallah ilaaha mahad iskala caafimaad ilaahay hanugu sii inta haysan Allah sii anagan Allah noo ziyaadi ilaahay mahad dhan sugnaata anaga waxaan sameeysan karno iyo waxaan qabsan karno wallahi ma jirto alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay nimcadiisa noo taamiyala mahad iskale alxamdulillah rabbil caalamiin marka waa kana hilibka marka waxaan dusha uga soo shubay baazaaliyadaas digirta yar oo cagaaran iyo baradhadaas iyo karootaas xoogaa huf isku sii wax saliid kuma darin wax basal kuma darin biyo yaraan ku hufiyo jag waa ku soo shubay marka qeer aan isku gnahay